السلام عليكم دمانتين أصحابتي وأنا دين سلامية ميل والبعض شوكتان وحن دين الله هاي الصورة وهذا كسر وهذا شعيلكي يوم لبوا في الشيال يوم يبان دين وني أنا هم بروح عودي شعيلك ودنك شعيلك أيون كود هالليني هذا وحن دين وذا صدن هب ونينك ربط كوش على الكوسة ماينايو أما بقفك ربط كوش على صدن فعل أمر والبكوسة مايو كو mar walba wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku arko qof ma handiiday aragaaga mar walba wuxuu raadiyaa kulankaaga inuu adiga ku arko qaabkay doontaba ha ahaatee labo isaga wuu ku dul qaadanayaa wuu ku dhageystaa markaad careysan tahay ma ahan qof adiga markaad careysan tahay isna kula muruma ama ku qayliya mar walba wuu ku dhageystaa ilaa intaad adigu boganayso hadalkaaga hadal careysan tahay madax naqsan tahay saddex wuu ku xushmeeyo oo kugu ixtiraama fikirkaaga mar walba waa qof fikirkaaga kugu ixtiraama sida hadaad rabtid inaad wax qabatid ama aad wax baratid ama aad dhahdid qofaad wada jeceshin mar walba fikir baad ku leedahay wada fikir walba aad leedahay waa qof kugu ixtiraama ma qofkaas oo rajaysto oo ku dhaho dhanka cabaydinta ama wax kale ku isticmaalay ma mar walba oo qof adiga ayaan ku danaynaya وينو سعودان قضبضيني أفر ومو فكروا إنه كوجو سماه وحيابه شرفت هذا دعوة وكود دالا إنه شرفت هذا كر وقاضه سيدا واحدة نصور خلدن فيديو خلدن واحدة هن أردن وكائل علينا بكوس وقف ربا إنه أديك مستقبل كاركتو وأيه سيدان بقى أديك النقطة إلمي سقوي سينا نقطة بربا مركو قف كاسو كلا شرف دعنا المكوكينيو شان مرول وتاجين هاي إنه كعاويو وحيابه بدن بتبنيسا مركزته ويل هذا تايدا قبر تايبا عاونات بدو باهن تاين كستان قبر حكا هاللينو مركا عاونات كسته وكعاونية وحول بدو باهنتو وحسوسنا يا طريقها كمهمة sida gabdhaha sanadadan dhalashay dhigtaan dhalasho leedahay kale waxa dhici karta inuu hayo waqtigaaga inkastoo Soomaalidu dhalasho isaas u dhiganin sida hadii aad leedahay waqti qalin jibin ama de wax ku muhiim ah oo asagu ugu sheekaysido dhaadin xilligaas aan rabaa inaan waxa qabsado qofku wax xasuusan maxay ku jecel yahay farxadaadu na rabaa inuu ka farxiyo sabab la'aan waa lambarka toddobaad oo mar walba de farxada wala isaga baahan yahay haddana waa qof mar walba ka farxinaya sabab la'aan haduu arkado xanaaqsan isku dayay inuu ka farxiyo sagaal wuxuu jecel yahay inuu kula qaato waqti qof ma marka la hadlay sidoo kale ka ordayay ama xilliga doontid inta doontid waxa doonto uga sheekay ilaahuma yahaadaan wax caajis wax walba qofkaas uu dhageysanaya mar walba waa lambarka tobanaad waa mid ku difaaca waa mid adiga sharaftaada iyo inuu de ku difaaco u taagan hadaad maqan tahay oo dad wax ka sheegan waa kii ka caliyo oo dhaha gabadhan sidaas ma koob iyo toban mar walba uu ku soo waca si uu hubiyo inaad nabad tagtay hadaad safar tahay ama badi aad maqan tahay qofka mar walba inaad isla joogtaan maaha ama aad ka tagtid oo kale meel aadid mar walba uu ku hubinaya wuxuu ku leeyahay ama nabad tagtay maxay leh taas wixii kamid tahay jacaylka numberka 12aad wuxuu ku sameeyaa wax walba si aad u dhoola cadayso mar walba way soo laabanaysaa farxad wax badan bay nagu soo laabanaysaa ay dhoola cadaynta iyo maadaama aan gabdhanahay aanu jecelnahay mar walba nalka qosliyo maxay gabdhuhu uma qalmaanba in laga xanaajiyo mar walba ay gabdhuhu waxay u qalmaan in laga farxiyo afar iyo toban ama 13 uu ku cafinaya markaad qalad weyn ka gasho haba ku qaato waqtiga qalad walba oo ka gasho qofka sida dhabta ah uu jecel uu ku cafinaya ha ku qaato maalin ha ku qaato labo ha ku qaato saddex toddobaad bil kii ku cafiyo way oo de qasab jacaylkaaga ku qasbay inuu ku cafiyo adiga uu kula si qaato nolol 14 wuxuu ku dadaali doonaa intii krankiisa inuu waqti ku helo sida haduu yahay qofkaagu qof shaqeeya mar walba wuxuu isku dayaa inuu yahay qof shaqeeya inuu adiga qof waqti ku helo maxay lama jiro qof mashquulsan ilma waxa ku xiran tahay halka adigu ka taagan tahay jawi iska macaan oo dabeelir iska socota jawi jacaylka waaye 15 mar walba wuxuu ku dadaali doonaa inuu adiga ka dhigo mid faraxsan farxadu inagu soo laabatay adogtahay ka farxi gabadha jeceshahay 17 waxaad isaga ula muuqataa mid qurux badan
mar walba xilli walba badanaa dee gabdhuhu way labistaan markay qofka jecel yihiin u tagayaan way sabaynayaan laakiin anka haddii aadan labisnayn oo dee si kadiisa kugu arko ama aadan makeup marsanayn ama aad dee adigu aad isdhahan qofkan kaama helay fikradaada oo dee isqurxintii laakiin asagu ka helay dhabku jecel yahay wuxuu ku barayaa dadka kuugu dhow saaxiibadiisa iyo qoyskiisaba maxaa yeelay wuxuu rabaa inaad qoftiisa mustaqbalka noqotid qofna ma baro qof uusan rabin dadka kale maxaa yeelay wuxuu rabaa suu kuugu faano mar walba wuxuu ku barayaa saaxiibadiisa asxaabtiisa wuxuu kula wadaagayaa dhammaan sirta noloshiisa maxaa yeelay qof sirkaa qorsanaya ninba kuma noqon karo ma ogtahay sirta noloshiisa ayuu kula wadaagayaa oo wuxuu ku dhahayaa waxaasan leeyahay wuu kaa masayrayaa hadaad gacanta ku salaanto nin raga ama qof ajnabi ka ah maxaa yeelay masayrkooda lagu abuuray oo qofaan adiga ku jeclayn kuma masayri karo marka waxaad ku ogaanaysaa qofka aad sida dhabta ah ku jecel mararka qaar marka aad salaanto qof ajnabi ka ah haddii uu indhaha kaa daawanayo uusan kula hadlayn keerkaa lahayn dee qofkaas adigaba caadi ahaantaada sida uusan keerka kaaga lahayn marka aad dadka salaantay ayuusan adigana keerkaaga lahayn wuxuu ku riyoonayaa mustaqbal wanaagsan oo yeelan doonto wuuna kaala tashanayaa macnaha riyooyinka qaar oo uu kala tashanaya wuxuu ku leeyahay sida waxaan rabnaa inaan noloshaas galno waxaan rabnaa inaan sidaas sameeyno adigoo tashiyo badan ayuu dhankaaga kaaga sameynaya wuxuu ku sheegayaa waxyaalaha uu ka liito si aad uga kabto waxa la dadku ma dhameystirna mar walba wuxuu ku sheegayaa meeshuu ka liito dhankaas waxa jiro halkaas aan wax ka tabanaya maxay leedahay mar walba wuxuu rabaa inaad ka kaabto sida haduu ballanta ku xun yahay kale oo inuu ku sheegaa inuu dhanka ballanta ku xun yahay si aadan mararka qaar uga xumaanin ama aad dhanka ballanta adigu dee waxun aad ugu sameeyso marka aad wada socotaan wuxuu faanaya taasi faanka ay soo hosgelaysaa oo mar walba oo qofku faanaya waa dhici kartaa inaan qodobo badan ka tagay kuwanina waa qodobo aan soo ururiyay dad badan asxaabo badan ka soo kala ururiyay marka wasaxnaan karaan way khaldanaan karaan haddaan wax ka tagay adiga commentiga nagu soo qor haddii aad baa ku aragtid qofka jeceshahay intaan mid ka mid ah ama calaamadahan aad ku aragtid waa qofku jecel oo adiga ku danaynaya farxadaadana raba haddii aad ka weydina kama dhigna taas maxay u xiriir kartaa in aan anigu aan ka tagay oo asaga ka muuqdaan marka dhammaantiin waan salaamaya